sheekadu waxay ku bilaabanaysaa adduun ay ku wada nool yihiin dadka iyo makhluuqaad sixir leh. Meel ka mid ah boqortooyinkii waxaa ka dhacay dagaal weyn, halkaasoo koox geesiyaal ah ay wajahayaan cadowgii ugu halista badnaa ee dunida soo mara, boqorkii jinniga. Dab muuqaalka noo like gareeya haddana cusubtana subscribe soo dheh. Maanta waxaan idiin wadaa taxane kale oo xiiso leh. Dagaalku wuxuu ahaa mid adag, laakiin ugu dambeyn geesiyaashii waxay ku guuleysteen inay joojiyaan dhaqdhaqaaqiisa. Si kastaba ha ahaatee, boqorkii jinniga ma uusan quusanin. Si lama filaan ah ayuu afkiisa uga soo tuuray tamar weyn oo xoog badan. Mid ka mid ah sixirleydii kooxda ayaa sameeyey gaashaan weyn si uu u joojiyo weerarka, halka geesigii ugu weynaa uu horay u orday isagoo saaxiibadiisa taageeraya. Isagoo xooggiisa oo dhan isticmaalaya ayuu seeftiisa madaxa kaga dhuftay boqorkii jinniga, laakiin weerarku halkaas kuma dhammaanin. Sixirleygii xidmad lahaa ayaa ku xigay weerar hilaac ah oo xoog badan. Dhammaan xubnihii kooxda waxay isku darsadeen awooddooda, ugu dambeyntiina waxay heleen guushii ay muddo dheer raadinayeen. Boqorkii jinniga waa la jebiyey. Markii ay ku laabteen caasimadda, dadkii oo dhan waxay ku soo dhaweeyeen farxad iyo sacab. Boqorkii dalka ayaa go'aansaday inuu abaalmariyo geesiyaashii, wuxuuna siiyey magaca ugu sarreeya ee loo yaqaana afarta boqor. Laakiin geesiga wuu yaabay sababtoo ah magacaas oo caadi ahaan heli jiray oo keliya dadka ka dhasha qoysaska sharafta leh. Si kastaba ha ahaatee, boqorku wuxuu madaxiisa saaray taaj, wuxuuna yidhi, adiga waxaad noqon doontaa boqorka hilaaca. Dadkii oo dhan way u sacabtumeen. Geesigiina indhihiisa waxaa ka imaaday ilmo farxad leh, wuxuuna ogaaday in dhammaan dhibkii iyo tababarkii iyo dagaaladii uu soo maray ugu dambeyn la aqoonsaday. Sanado badan kadib, geesigii wuxuu noqday mid waayeel ah. Maalin subaxa, gabar yar ayaa la oran jiray Merlin ayaa u timid iyadoo leh quraacda waa diyaar, laakiin isaga wuxuu arkayay inay tahay maalin kale oo tababar ah. Wuxuu ardaydii isku amray in dhagaxaan madax saartaan, isla markaana ay ilaashadaan wareegooda sixirkooda. Mid ka mid ah ardayda ayaa dhagaxii ka dhacay. Geesigiina wuxuu ku yidhi, haddii aadan diiradda saarin, ma awoodi doontid inaa ilaalisaan wareegga sixirka markaad sixirka akhrinaysaan. Wuxuu qorsheynayay inuu baro sixirka heerka afraad, laakiin Merlin ayaa ka codsatay inuu nasto. Waxay ka welisanid caafimaadkiisa. Markaas ay xusustay maalinta uu helay Merlin iyadoo ilmo yar ah. Hooyadeed waxay ahayd jinni, waxayna ku dhimatay dagaalkii uu kula jiray boqorkii jinniga. Merlin ma xasuusanayso in isaga uu dilay qaar ka mid ah jinsiyadeeda, laakiin isaga og xaqiiqdaasi. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu go'aansaday inuu sii wado tababarka, laakiin Merlin waxay tiri, macallin, halkii aad nagu bari lahayd heerka afraad, na bar heerka lixaad. Wuu yaabay, wuxuuna sii weydiiyey sababta ay sidaas u degdegayso, laakiin Merlin waxba ma aysan sheegin. Kadib markii ay dhammaatay casharkii, Merlin waxay keligeed u baxday makayn fog. Waxay hor istaagtay god mugdi ah oo ay ku nooleed bahal halis ah. Ka hor intaysan gudaha u gelin, waxay nafteeda ku tiri, waxaan doonayaa inaan caddeeyo inaan ahay ardayga ugu fiican ee macallinkayga. Waxay rabtay inay muujiso awooddeeda si geesigu u oggolaado inay iyadoo tababarto ardayda kale, taasoo siin lahayd waqti uu ku nasto. Laakiin markii ay gudaha gashay godka, waxay ogaatay in xaaladdu aysan ahayn sidii ay filaysay. Bahalkii ayaa aad u xoog badnaa. Waxay isticmaashay sixirka heerka afraad, laakiin wax saameyn ah kuma yeelanin. Bahalkii ayaa bilaabay inuu eriyo. Merlinna waxay gaartay inaysan haysan fursad badan. Markaas ayay go'aansatay inay tijaabiso wax aan hore loo sameynin, sixirka heerkiisa lixaad. Waxay bilowday inay akhriso ducada sixirka, iyadoo bahalkii si xawaaro badan ugu soo orday. Markii ay dhammaysay sixirkii, cirka waxaa ka soo dhacay hilaac weyn oo si toos ah ugu dhacay bahalkii. Merlin waxay u maleynaysay in dagaalku dhammaaday, laakiin markii qiiqa kala baxay, waxay aragtay bahalkii weli taagan. Bahalkaas si xoog leh ugu soo booday, wuxuuna dhulka ku tuuray Merlin. Waxay u maleynaysay inay dhimatay, laakiin si lama filaan ah geesiga ayaa soo muuqday, wuxuuna badbaadiyey Merlin. Kadibna wuxuu ku canaantay, waa maxay sababta aad kaliya ugu timid meel sidan khatar u ah? Merlin madaxa ayaa hoos u dhigtay, wayna ka raaligelisay. Geesigu wuxuu ogaa in Merlin ay leedahay kartida ugu weyn dhammaan ardaydiisa, laakiin dhibkeedu wuxuu ahaa degdeg badan. Wuxuuna ku yidhi, awood keliya kuma filna, haddii aadan lahayn dulqaad, weligaa ma baran doontid sida saxda ah sixirka. Intuu la hadlayay, bahalkii mar kale ayuu kacay. Geesigii wuu xanaaqay, wuxuuna yidhi, xitaa hadda wuxuu iga dhex galay cashirkayga. Kadib wuxuu sameeyey sixir aad u xoog badan, sixirka heerkiisa tobanaad. Hal mar ayuu bahalkii baabi'iyey. Merlin way yaabtay. Waxay ogaatay in macalinkeeda uu weli yahay qofka ugu awoodda badan ee taqaan. Habeenkaas Merlin waxay fadhiistay agtiisa iyadoo la yaaban awooddiisa, laakiin si lama filaan ah geesiga ayaa jilbaha dhulka dhigtay. Wuxuu bilaabay inuu qufaco, waxaana ka soo baxay dhiig. Merlin waxay u muujinaysay inuu hore u ogeyd xaaladdiisa. Waxay tiri, waan ogaa inaad xanuunsan tahay, taasi waa sababta aan u doonayay inaan wax walba si degdeg ah ku barto. Waxaan rabay inaan kaa caawiyo oo aan ku siiyo waqti aad ku nasato. Geesigu wuxuu ku jawaabay, ma haysto waqti aan ku lumin karo. Merlin waxay weydiisay, laakiin maxaad weli u tababaraysaa sixirka adigoo xaaladda ku jira? Markaasay runtuu sheegay, wuxuuna yidhi, waxaan rabaa inaan tababaro dad karti leh sida adiga camal. Wuxuu xasuustaa dhallinyaramadiisa. Wuxuu mar walba doonayay inuu noqdo qofka ugu xoogga badan adduunka, laakiin ugu dambeyn wuxuu ogaaday inaysan suurtagal ahayn. Sababta waxaa jira sixirlayaal da'yar oo ka karti badan asiga. Xitaa markii uu la dagaalamayay boqorka jinniga, wuxuu ahaa qofka ugu dhibka badan kooxda. Wuxuu rumaysnaa in sababtu ay ahayd isaga oo ahaa qofka ugu da'da weyn
kooxda. Maalintii xigtay mid ka mid ah ardaydiisa ayaa u sheegay boqorka dabka wuxuu dhameeyay cilmi cusub oo lagu cabiro kartida sixirka. Geesigii ayaa go'aansaday inuu tijaabiyo. Waxay qaadeen timo yar ee lahayd Merlin, kadibna waxay geliyeen 4 dhalo oo biyo sixir leh. Mid kasta wuxuu matalayay nooc sixir ah: dabka, biyaha, dabaysha iyo dhulka. Markii timihii Merlin lagu riday dhalooyinka, dhaladii dabaysha iyo biyaha ayaa iftiimay. Taasi waxay ka dhigan tahay inay leedahay karti heerka S ah. Dabka iyo dhulkana waxay noqdeen heer B. Geesigu wuu farxay, wuxuu ogaa in Merlin ay tahay qof gaar ah. Kadib wuxuu go'aansaday in isaguna sameeyo tijaabada. Ardaydiisa waxay filayeen natiijo weyn. Waxay yiraahdeen, adigu waxaad tahay boqorka ilaaca, waa hubaal inaad leedahay karti sare. Laakiin markii timihiisa lagu riday dhalooyinka, waxaa dhacday wax yaab ah oo qof walba ka yaabiyey. Dhammaan dhalooyinkii midab ma lahayn. Waxay ka dhigan tahay hal shay: geesigu ma lahayn wax karti sixir ah. Haddaba saaxiibayaal, qaybta saddexaad adinkeedii ku xiran tahay muuqaalkan la galay oo asxaabban u sheer gareeya. Wadana cusubtana subscribe soo dheh.